wararkeena suuqa kala iibsiga maanta waxa ugu door karoon kooxda kubadda cagta Arsenal oo lacag rikoor ah oo dunida oo dhan ka yaabisay miiska u soo saartay kooxda Atletico de Madrid iyadoo ka doonaysa weeraryahankeeda xulka qaranka heer Argentina iyo kooxda kubadda cagta Atletico de Madrid weeraryahanka haatan la isku haysto Julian Alvarez waa maxay lacagtaas qiimaheeda iyo sababteena dunida oo dhan ay la yaabeen waxaana barnaamijkeena ka marneen Bebe Guardiola oo markan diyaar wax inuu leeliyo xul kamid ah xulka ugu waaweyn ee dunida waliba heshiiska shakhsiga ah goor hore ba la gaaray wararkeena maanta waxaan kaloo ku soo qaadan doonaa kooxda kubadda cagta Manchester United oo soo gashay loolanka looga jiro xidiga heer England iyo kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ninka lagu magacaabo Morgan Rogers ayaa bartilmaameed waxa kooxda kubadda cagta Arsenal laakiin haatan waxa la sheegay inay ku soo bireen laba kooxood oo waaweyn oo ka tirsan horyaalka Premier League iyo Arliga England sida kooxda kubadda cagta Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea the Blues. Arsenal ayaan dagaalada haatan ku adkaan doonaan maadaama Morgan Rogers ku adkaan doono maadaama ay soo galeen kooxooyin waaweyn ee sida kooxda kubadda cagta Chelsea iyo Manchester United. wararkeena waxaa kaloo aan ka marneen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadana u dhaqaaqi doonto saxiix weyn waa kuma saxiixaas kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Germany oo isku diyaarinayso inay ka qaadato kooxda kubadda cagta Arsenal xidig laf dhabar oo ah waqti xaadirkan kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo diyaar u ah inay la wareegto xidig aad iyo aad u weyn oo lagu qiimeeyo Arliga Premier League ee England aad baad u mahadsantiin saaxiibada qiimaha iyo qaayaha badan fadlan haddii aad halkan la soo gaartay waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe noo saartid channelkeena oo sii share garisid Ilyas Ali Abdi aad baad u mahadsantiin idinka wax idinku dhahay mahadsantiin saaxiibada qiimaha iyo qaayaha badan barnaamijkeena aan ka bilowno Bebe Guardiola macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City sanadaha dambe leelinaya oo haatan ka dhaqaaqay oo shaqo la'aan ah ayaa la sheegay in xulka qaranka ee Uzuri ama Italia haatan heshiiska shakhsiga ah goor hore la gaaray macalinkan oo diyaar waa inuu leeliyo xulka qaranka ee Italia oo gabi ahaan tayadii uu lahaa xilkaasi lumiyay sanadihii la soo dhaafay xulka Azuri ayaa looga bartay inay yihiin xulka ugu awood badan ee dunida hayeeshee sanadihii ugu dambeeyay ayaa la arkayaa in xulka Uzuri uu noqday kuwo iska barbarad ah oo dadka oo idin iskala tacaalaan oo waxba ahayn waxaana lagu qiimeeyaa waqti xaadirkan xulka ugu taagta yar ee dunida saas darteed Bebe Guardiola ayaa diyaar u ah inuu ka saaro xulkan abaarta koob la'aanta ay haysato asigoona diyaar waa inuu u soo celiyo awoodii loogu xulka Italia ayaa looga bartay inay dardar geliyeen dhammaanba xulka waaweyn markii ay kulmaan inay dhulka ku gara sanadihii ugu dambeeyay waxaan arkaynaa Italia oo xitaa ay awoodeen inay ka soo qayb gasho World Cup-ka xitaa World Cup-kan haatan socod Italia kama soo qayb galin oo sidaas ay ku seegtay sidaa darteed xulka Italia ayaana leelin doona Bebe Guardiola asigoona diyaar u ah inuu soo xusho xidiga da'yar ah gabi ahaan ka saaro safkiisa xidigaha da'da ah oo haatan dhulka la jaray xulka Uzuri waxaa kaloo barnaamijkeena ka barnayn xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal ee ninka lagu magacaabo William Saliba ayaa suuqa waqti xaadirkan noqday mid kamid ah xidigaha suuqa shatay maadaama xidigan la isku haysto xidigan ayaa ku loolamaya kooxooyinka dunida ugu tanka weyn sida kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona yaana ka reebin Paris Saint-Germain Germany xidiga xulka qaranka Faransa iyo kooxda kubadda cagta Arsenal mooshinka adag ee loo yaqaano Barcola William Saliba ayaa haatan la sheegaya in lacag lagu heli karo lacag gaarayso cadadeeda 150 milyan saas darteed ay raji gelisay kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain Germany iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xidigan ayaa la sheegaya in qaliin gali doono dhamaadka World Cup-ka laakiin sidaas ay tahay kama joojin xiisaha ay u qabaan kooxooyinka Real Madrid Paris Saint-Germain Germany iyo kooxda kubadda cagta Barcelona Arsenal ayaa dul dhigtay xidigan aduun lacageed gaaraya 150 milyan hadaba kooxda noqon doonta kooxda ku guuleysan doonto daafaca dhagax loo yaqaano ee William Saliba oo taageerayaasha qaarkoodna ay ugu wacaan Barcola ayaa la sheegaya haatan inuu ka dhaqaaqi doono gegada Emirates Stadium dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal kuma faraxsanaan doonaan warkan hadii ay maqlaan laakiin waa serious warka oo haatan suuqa yaala William Saliba inuu ka dhaqaaqi doono gegada Emirates Stadium hadii ay helaan dalab ku filan kooxda kubadda cagta Arsenal ama lacagta ay dul dhigeen 150 milyan
waxaa kaloo wararkeena maanta aan ku soo qaadan doonaa xidiga kooxda kubadda cagta ee Atletico de Madrid oo suuqa u shadnaa kooxda kubadda cagta Barcelona kor horaantii bishan laga soo diiday lacag gaarayso 100 milyan sidoo kale kooxda kubadda cagta Real Madrid oo laga soo diiday 150 milyan haatan Arsenal ayaa dunida oo dhan lacagtay ka gudbisay fajac ku noqotay waxayna dhaheen Arsenal waa kooxda kaliya ee la xifaaltami karta Atletico Madrid ama wajiyada Atletico Madrid ay leedahay kooxda kaliya taqaano waa Arsenal ayaa xalay ka gudbisay Julian Alvarez lacag gaaraysa 90 milyan iyada oo xidigan lagu qiimeeya 200 iyo wax ka badan haatan Arsenal ayaa sheegtay in ay u qalmo Julian Alvarez lacagta ugu badan oo asiga u qalma ay tahay 90 milyan waxayna sheegeen inay diyaar ka tahay oo in miiska saaran tahay 90 milyan laakiin wax ka badan intaas aysan ku qarash gareyn doonin Julian Alvarez maadaama Atletico Madrid lagu bartay inay ciyaarto ama ay ciyaariso dhammaan kooxooyinka waaweyn Arsenal ciyaartii saxda ahayd ee Atletico Madrid waa kooxda kaliya oo haatan la ciyaartay la leeyahay dalabkaas ayaana dunida oo dhan fajac ku noqday maadaama kororaantii bishan laba koox waaweyn looga soo diiday mid 100 milyan dalab ah ka gudbisay iyo mid 150 milyan oo dalab ah ka gudbisay haatan Arsenal waxay miiska saartay 90 milyan oo kaliya oo waliba wax gunooyin aan la soconin wararka kale oo maanta dunida oo dhan qabsaday waxaa qayb ka ah xidiga Morgan Rogers ee kooxda kubadda cagta West Ham United iyo xulka qaranka England xidiga qadka dhexe iyo weerarka ka xamaasha oo 23 jirka ayaa soo jiitay kooxda kubadda cagta Arsenal ee macallimo Mikel Arteta oo bilihii ugu dambeeyay xidigan doonay inuu keeno kooxda kubadda cagta oo xidigan milkiidiisa le ayaa soo saartay lacagta oo ku xadidan tahay inay la wareegaan kooxooyinka doonaya West Ham United ayaa xidigan ku doonaysa lacag gaarayso 150 milyan ama 130 milyan Arsenal ayaana diyaar la ahayd inay bixiso lacagta rikoorka ah ee lagu burburin karo xidigan maadaama xidigan uu doortay kooxda kubadda cagta Arsenal laakiin warar maanta soo dhacay ayaana u fiican dhigaha kooxda kubadda cagta Arsenal taageereeda meel walba ay joogaan xidigan ayaa loolankiisu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Manchester United oo gebi ahaanba labadii xidig ay doonaysay qadka dhex inay ku hoojiso ay ka dulqaaday kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur haatan waxay diyaar u tahay iyadana Arsenal inay ku garacdo saxiixa Morgan Rogers sida aan wararka ka xignay waxaa kaloo ku soo biiray loolanka looga jiro Morgan Rogers kooxda kubadda cagta The Blues oo qadkeeda dhexe ee Manchester United haatan ka qaadatay xidigii qadka dhexe u maamuli lahaa ee xilli ciyaareedka soo socda xidiga reer Brazil ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo kooxda kubadda cagta Chelsea ee miiska loo saaray lacagtii 50 milyan ay doonaysay haatan Chelsea ayaa sidan ku haysata qadax la'aan iyadoo raadinayso inay qadax cusub keento Morgan Rogers ayaana u aragtaa ninka kaliya oo xalin karo dhibaatada dhexdeeda haatan ka taagan Morgan Rogers weerarkiisa hadii uu u ahaa Arsenal kaliya haatan waxaa la sheegaya in ay noqday weerar saddex geesood ah Manchester United oo dhinaca Arsenal oo dhinaca iyo Chelsea oo dhinaca waxaana macquul ah xidigan lacagta lagu qiimeeyo inay kor u sii kor doorto maadaama ay kooxooyin waaweyn ku soo biireen waxaa kaloo barnaamijkeena aan ka marnayn kooxda kubadda cagta ee Barcola Santiago Germany oo Arsenal miiska u saari doonto 150 milyan ay ku doonayso ninka lagu magacaabo William Saliba laakiin kooxda kubadda cagta Barcola Santiago diyaar uma aan lacagtaas kaash ahaan inay u dhiibto waxay doonaysaa heshiiskaas inay qayb ugu dhigto xidiga garabka weerar ugu ciyaaray xulka qaranka Faransa iyo kooxda kubadda cagta Barcola Santiago Germany ninka lagu magacaabo Barcola oo ka dhaqaaqayo Barcola Santiago Germany kol horaantii bishanba ee kooxda kubadda cagta Barcola Santiago Germany ay suuqa soo dhigtay Paris ayaa doonaysa inay ugu faa'iideysato xidiga Barcola maadaama Arsenal xiisaba aan ka helayso xidiga Barcola ay doonayaan inay la wareegaan Barcola Santiago Germany ayaa diyaar u ah inay Barcola miiska saarto oo lacag 50 milyan ay ku darto haddii ay Arsenal aqbasho William Saliba wuxuu ahaan doonaa xidig Barcola Santiago Germany kooxda kubadda cagta ee Atletico de Madrid ayaa doonaysa haddii uu ka dhaqaaqo Julian Alvarez taas bedelkeed inay xanato xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal weerarka ugu ciyaara ninka lagu magacaabo Victor Gyökeres walow Victor Gyökeres uu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxda kubadda cagta Arsenal uuna waqti fiican ku qaadanayo waqti xadirkana uusan meel ugu socon laakiin Atletico Madrid ayaa doonaysa inay xidigan soo qaadato Arsenal haddii ay weyso xidiga kooxda kubadda cagta ee Atletico de Madrid waxay dooq labaad ka dhigatay xidiga xulka qaranka xidiga kooxda kubadda cagta Juventus ka bixi xurta ugu dhaqaaqay haatan Dusan Vlahovic ayaa doonaysa inay xidigan qaab free ah ku qaadato laakiin waxaa loolanka la kulmi doonta kooxda kubadda cagta The Blues ee Chelsea oo u ballan qaatay
xidigan inay siin doonto boos joogto ah iyo sidoo kale misheer waaliya. Dusan Vlahovic wuxuu ku soo wajahan yahay carliga ee England Premier League waxaana isku haysta kooxda kubadda cagta Arsenal iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea. Wararkan iyo warar kale oo cusub ayaa soo wada saaxiibada qiimaha iyo qaayaha badan haddii aad inta la soo gaartay subscribe sar channelka alayr magna furo waxaan soo wada warar kale oo update ah kuwooda ugu tankaroon ama ugu saxiixa wax la hubo noogu imaa wax la hubo aan ku soo gudbinay aad u mahadsantiin saaxiibada qiimaha iyo qaayaha.